اللي بعنا القرن تمام هو الرئيس اللي بعنا مهد محمد خلال اللي بعنا أحمد معلم فقي خبير كوين الصوماليات اللي بعنا سابر نور رومي سابر نور سوريا اللي بعنا علي يرى اللي بعنا مريم محمد حسين وكمل أول دقيقة اللي بعنا دولة قبلات الجلمذوق وزير هذا دولة قبلات الجلمذوق قضياشة دقنك هوينك دلنيرada عرورته بعض الصحافة ciidanka hay'adaha kala duwan ee shirkan isugu yimid galab wanaagsan waxa galabta farxadaya inaan idinla joogo anigoo ah wiilkiini walaalkiin iyo waalidkiin intaba oo idinku soo booqdo magaalada Dhuusamareeb idinku imaada caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxaan rabaa markii koowaad inaan idinkaga mahad celiyo dhammaan qabanqaabiyaashii iyo intiinii maanta qoraxda u taagneed soo dhaweynteeda iyo dhageysiga khudbadeyda inaan idin mahad celiyo oo idin jazaakumullahu khayran sidii odayaashii halkaan ka hadleen anigu nin doolaho dhulka iska yimid maahi waxaan soo doontay inaan madaxweyne ka noqdo Galmudug waxaan rabaa galabta inaan idiin sheego sababaha aan u soo doontay inaan madaxweyne ka noqdo dawlad goboleedka Galmudug haddii aad dhageysataan Soomaalida waayaha dambe waxa lagu arkay qofku wuxuu ku leeyahay wallahi wixii waa adiga ugu fiican waan ku anfacaysaa haddana xoogaa yar oo kala ula jira marka haddii meritku ama awoodda qofku ay noqon weyto waxa lagu qiimeeyo ogaada wadankan horumarkiisa waqti badan baa u dhimanaanay waxaan rabaa inaan idiin sheego maadaama aan ahay musharax u taagan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waxaan isleeyahay waad ku astaashay inaad noqoto dhowrka arrin ee soo socda noloshayda waxbarasho oo aan muddo dheer ku soo jiray dabcan intiina badanna laga yaabay inaad dhegeysateen oo heer iskool iyo heer jaamacadeed iyo heerka jaamacadeed waxbarashada labaad ee masterska la yiraahdo aan ku qaatay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay asaas u ahaayeen barashada culumta qaanuunka iyo siyaasadda markaan halkaas ka imidna waxaan ka shaqeeyay horumarinta waxbarashada teeda hoose iyo teeda sare oo aan isleeyahay waa meesha maanta aan ugu baahi badannahay in deegaankan wax laga qabto kadib markaan halkaas ka soo shaqeeyay waxaan noqday wasiirkii arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ahaa oon aniga iyo guddigii wasaaradda arrimaha gudaha ee hogaaminaysay aan lafdhabar u ahaa dhisidii dawlad goboleed mid ah ee Galmudug 2015 waxaan ku faraxsanahay ragga iyo gabdhaha halkaan jooga maanta odayaashii iyo gabdhihii iyo dhalinyaradii airport igu soo dhaweeyay iyo wiilasha iyo gabdhaha hadda heesta qaadayna kulligood 2015 ilaa maanta inaan aqaan طبعا ka badan aqaan waan jiraa laakiin kuwa ugu yar 2015 ilaa maanta aqaan nin xusuustiisu iska yara fiican tahay aan ahayo maalin dhaxdaas aan gaalkacyo maraan tiri waxaan ku arkay wariyaasha qayb ka mid ah oo ay ka mid tahay nafiso marka xoogaa yar waxaan arkay ayadoo aad maraysa arko inaad arkaan maxaa ka leeyahay nafiso oo inay taqaano moodeen marka waxaan ku fiicanahay hadda maanta dadkii airport igu soo dhaweeyay iyo dadkii inta fadhiya inta shaqaha dhex martay aad iyo aad baan u xasuustaa muddadaas aan ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo aan ka soo shaqeeyay dawlad goboleedka Galmudug waxaa lafdhabar aan u noqday aniga iyo wasiir Mahad iyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ahaa musharaxii waqtigaas xildhibaan Saabir xildhibaanada kale oo fadhiya adinku dhammaanteen waxaan lafdhabar u ahayn in la isu keeno oo isu timaado Galmudugtii kala deganeed xaafadaha kala duwan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan goobtaas ku qaybinay awoodo kala duwan waxaan qaybinay goobta shirka lagu qabanayo oo aan ka dhignay cadaado waxaan magacaabnay oo aan digreeto ku soo saarnay madaxweyne Xasan Sheekh asagoo hogaaminayo annaguna aan lafdhabar ka ahayn in caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ay noqoto magaalada Dhuusamareeb meerkiina waa joogaa dabcan magaalada Dhuusamareeb marka fadligaas aan ku leenahay waa isleeyahay ugu yaraan waxaan ku leenahay dhowr jaga la yiraahdo meeshan dhul xamar la yiraahdo dhowr jago bal in la siiyo degmo
markii dadka wax loo qaybinayo dabcan daano badan iyo daliil badan baa ka timaada laakiin anigu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ahaana nin u dhashay deegaanadan dadkan wax loo qaybinayana wiilkooda ahaa yaa waxaan kuwa walba aan tusiyey waxa ay ku leeyihiin iyo sida ay tahay inay ugu safraan muddo dheer oo dood ay jirtay waxaa ka waraysaan inaan anigu marnaba iska bedelin mowqifkaygii ahaa in caasimadda dowlad goboleedka galmudug ay tahay dhuusamareeb markii intaas laga soo tago dowlad goboleedka galmudug waxaa loo qaybiyey 89 xildhibaan oo aad ka waraysaan in waqti fiican lagu bixiyey waxaan aad iyo aad u sheegin karaa oon ku faanaa mar walba inay tahay dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleed aad iyo aad u dheeli tiran dadka degaana aad iyo aad loogu dheeli tiray qaybsiga awoodaha oo aan sadbursi la tilmaami karo la dhihi karo waxaas iyo waxaas yaa beesha dhexo laamiga u badan ay boobtay aan la dhihi karin aan ka shaqeeyey mas-uuliyaddeedana aan lahaa xildhibaan mahad salaad iyo aniga iyo madaxweyne xasan sheekh markaas aan sheegayno waa markaas aan calaamadayno oon digreetada ka akrinay holka hadda dhinaca uga jira ma ogiyey inji yaan ka akrinay oon ku sheegnay sida wax u kala dhici doonaan dad aad u badana berigaas qaarna naga xanaaqeen qaarna ku farxeen siyaasaddana sideeduba waa iska saas laakiin waxay rabtaa mabaadi anigu waxaa laygu tilmaamaa inaan ahay nin mabda'iisa ku adag marka haddii aad i doorataan wixii aad rabtaan aan isu hogaaminaya wixii aad u tilmaamtaan ku taagnaanaya haddii la yidhaahdo waxaan aad iyo aad isugu tiriyaa inaan ahay nin galmudug u siman tahay muddadaas dheer ee aan qaybinaya xildhibaanada ama kadib aan xildhibaan u ahaa deegaankan ka ahaa deegaanada iyo dadkuba dad ii siman oo ahalkayga iyo dadkayga ah meel walba ay degan yihiin afka ceeldheer ilaa afka balanbale afka afbarwaaqo ilaa afka guruceel nin ka warhaya oo ay u maafgaraysan tahaan ahay haddaad fursadda i siisaanna wixii aan ka qaban lahay aad iyo aad baan ogahay qaybo ka midana waa idiin sheegi doonaa laakiin waxaan aaminsanahay nin maskaxdiisu ay ku jirto wixii uu qaban lahaa waxaa la yidhaahdaa markii aad rabtid inaad kun tallaabo qaadid tallaabada koowaad meeshaa ka bilaabi lahayd waa inay ku cadda waxaa laga yaabaa marka anigu kursiga uma soo doonan wallaahi kursi isiiyey madaxweyne maray dhaha maaha arrinkaygu waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii ilaah yidhaahdo waa idiin imaan doonaan kuwaas waa ay soo daba socdaan anaa hadda u horeey markay idiin yimaadaana weydiin doontaa waxay ku astaahilaan kursiga haddii aad qorataan oo dabcan dad badan oo idinka mid a waxaa laga yaabaa maanta inay is yidhahdaan war adinkaad xildhibaanana ma tihiin horta adinka codkiina wey waxa xildhibaanadu ay xildhibaano ku noqonayaan xildhibaanada subaxii gabdhuhu markay quraacda soo siinayaan waa inay dhegta ugu sheegaan ciday dooranayaan marka awoodaa leedihin awood la-aan ma waayahan dambe niman aan ishaynay oo hadda annagu hadda sirna ma baahane dowladda qoladan haysataa social media waxa la yidhaha ay ku haysteen baryahanna adinka wey waxa social media ka raacdeeyey kooxaha meesheedii inaad uga sii haysaanna waa mas-uuliyadeeda saaran ilaa aad qofka aad rabtaan ood adinku taageersan tihiin oo ka soo baxana cod aad leedihiin ha isu qaadanina dadaan cod lahayn waa la bedelay agekii aan qofku cod lahayn waa la bedelay age public perception aa lagu nool yahay baryahaana hadda muuqaalka aad maanta igu soo dhaweyseen codadka aad ii soo dirteen sidii aad isu daba taagneydeen 2 sano oo soo dhaafay dal iyo dibadda meeshaan tagay qof walba wuxuu ilaawaa inaad galmudug isu soo sharaxdaa adinka ay ugu qanciyeen inaan imaado adinka laga rabaa kursiga saan heli lahayn aan ka wada shaqeyno haddii la ii doorto xilkaas aan maanta raadinayo insha Allah waxaan idiin ballan qaadayaa inaan amniga ka shaqeyn doono oon shaqo la yaqaano ka qaban doono aanoo adeegsan doona geesiyaasha reer galmudug waxaan maanta ka xumaaday anigoon aad ugu fogaanaynin ciidamada ajnabiga oo aeroboortka jooga waxaan uga xumaaday soo daraad ma ahayn magaalada Gurceel ninka qaraxa isku dayay wiilashii saas garbaduulka u qabtay soo meeshaan ma joogaan ogaada anigu kuwaasaan shaqo u dirsan doonaa kuwa kale ma keenayeen haddii ilaa yidhaahdo dadka deegaankaanu ilaa waa la ogyahay isticmaalkii ilaa hadda dadka deegaankaanu dadka askarta iyo ciidanka iyo shaqada dowladnimada gaar ahaan ciidanka loo diray ahaayeen in la habeeyo oo la organize gareeyo bisay u baahan yihiin dalkan iyo dalal kale ka shaqayn karaan activity-ga ku jira marka haddii aan fursadaas helo inaan awoodahaas intaan mideeyo activity-giina iyo maskaxdiina waa laydinku yaqaanaa firfircooni maskaxeeda
alla arko adinkoo cirka u socda aan kor u duulno annaga dhan arrinta amniga markaan ka soo tago iyo xoraynta deegaamada runtii halkaas waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo magaalada Dhuusamareeb iyo deegaankan ilaa hoos yimaada waxaa aad iyo aad loogu xasuustaa jihaadkii ay ka galeen culimmada ahlusunna wal jamaaca weli sidii loogu baahan yahay doorkoodii runtii waxayna yihiin darbi mar walba taagan hor taagan kooxaha argagixisada haddii ilaahay yiraahdo oo dowladdaas la ii doortana waxaan idin ballan qaadi doonaa dowlad midaysan oo culimmadeeda iyo caamadeeda iyo ciidankeeda isgarabsata inaan ka dhigi doono cidnana aan laga fogeyn doonin siyaasadda waxbay ku leeyihiin waa u soo jihaadeen waa u soo dhinteen mararka qaar aan la gacan bidixayn laakiin waxaan ogolnahay annaga ruuxeennu aan rabnaa inaan gaarnay haddaanu nahay reer galmudug nidaam leh oo dowlad leh oo system laan u baahannahay marka midaasaan ka wada shaqayn doonaa annaga iyo culimmada iyo dhammaanteen inta hadda dowladda federaalka ku jirta waxaan idin ballan qaadayaa haddii la doorto mararka qaar xoogaa yaroo su'aalaha igu soo laabtay waxaan idin ballan qaadayaa in siyaasad loo dhan yahay aan ka shaqeeyo waxaan caan ku ahay isku wadidda dadka kala aragtiyada duwan waaniga idiin sheegay ayadoo Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo Gaalkacyo iyo Cabidwaaq iyo Ceeldheer kulli la kala aragti duwan yahay iyo Ceelbuur yaan dadka isu keenay oo isku eegay marka haddii hadda ilaahay yiraahdo waxaan ka shaqayn doonaa isku haynta hal qodob oo aad iyo aad muhiim u ah rabaa inaan idin ballan qaado haddii aan madaxweyne ka noqdo galmudugta aan madaxweynaha ka noqdaa ma noqon doonto galmudug siyaasadda qaska ah ka shaqaysa waxay noqon doontaa galmudug qof walba shaqo uu leeyahay horumarka nafta bani aadamka waxa laalay wixii ku suubanna looga shaqeeyo waxaan rabaa inaan cod dheer idinkugu sheego ma noqon doonto xarun laga mucaarado dowladda federaalka waxay noqon doontaa xarun lagala shaqeeyo dowladda federaalka ah waxaan kala shaqayn doonaa in allaale intii ay run noo sheegayaan na waa la shaqayn doonaa haddii ilaa yiraahdo hadday wax qaar ugu masawir noqdaan oo iska diidanahay la yaabinina mararka qaar nin ana falo wax iska diidanahay dowladda federaalka markay qalbi dhagax diiday waa iska diiday markay Cabdiraxmaan Abshakuur weerartana waa iska diiday haddii wax qaldan ay la shirtimaadana waa iska diidi doonaa laakiin galdarra anaga naga timaado xaggeena inta ka timaado la yiraahdo dowladdii waa la qaraab tagay ma imaan doonta haddii la yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan idin hubiyo haddii ilaa yiraahdo oo idin doorataan waxa aan xirfadda u leeyahay ka bilaabi doono waxay tahay waxbarashada in waxbarasho quality leh oo basic leh laga bilaabo daafaha galmudug ayadoo laga bilaabayo caasimadiisa helno aan u dirno dhammaan daafaha gobolkan meel walba oo ka mid ah dowlad goboleedka galmudug waxaan sidoo kale samayn doonaa macadka tababarka dhalinyarada iyo xirfadleyda haddii ilaa yiraahdo waxaan isleeyahay midaas ma aha ballanqaad qalalan waa midaan khibradna u leeyahay una haysto jidadkii lagu qaban lahaa haddii ilaa yiraahdo waxaan ka shaqayn doonaa caafimaadka oo aan ka shaqayn doono gaar ahaan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka sida aad ka warhaysaan Soomaaliya waa wadamada ugu sarreysa ee hooyadu ay umusha ku umul raacato ama ilmuhu 5 sano ka yar ay ku dhintaan dowlad goboleedka deegaankana waa ka warhaysaan deegaanada aad u kala fog oo hooyadu aysan meel ay ku umusha haysanin ama umulis aysan joognin ama neersin aysan joogin jira waxaan ka shaqayn doonaa in tuulooyinkaas ay helaan MCHO iyo ugu yaraan hooyo gargaarka degdega awooda oo aan sidii dhaqanku ahaan jiray aan tooriye gabadha lagu foolin haddii ilaa yiraahdo waxaan aad iyo aad hore ugu sheegay haddana idinku celin doonaa inaan ku mashquuli doonin siyaasadda oo siyaasadda qaska ah oo maalin walba daily activity-ga aanan ka shaqayn doonin ee aan ka shaqayn doono siyaasad loo dhan yahay aragti furan sida aad ka warhaysaan oo halkudhigaygu yahay waxaan ka shaqayn doonaa galmudug mid ah dad wada jira iyo deegaan nabada saddexdaas weeye ajandaha aan la soo shirtaga haddii ilaa yiraahdo waxaan rabaa inaan mar kale marka soo dhoweeyo shirka dib u heshiisiinta ee ka furmay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb sidaan hore u sheegay dowladda culimada aan tilmaamo uun weyneeyo haddii ilaa yiraahdo oo galmudug aan fursadaas ka helno galmudugta aan doonayno walaalayaal hooyooyin adeeryaal abtiyaal ilma adeerayaal galmudugta aan doonayno
وقلمدو إسدقيسته إسربته لا ترتنت dadka kale ayada aan isla tartan hadii aan fursadaas helo waxa laga bixi doonaa magaalo galmudug ku dhagan hadii la yiraahdo dadkaanuna aragti midaysan oo hore ugu dhaqaaqaan oo isku la socdaan oo isku jeclaadaan aan ka shaqeyn doonaa waxaan hiigsan doonaa dawlad goboleedka aan walaalahanahay ma nihin dad masayrsan oo xanaaqsan laakiin wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun way qofka ka fiican wixii uu sameeyay inaad sameeysato dawlad goboleedyada aan dariska nahay sida dawlad goboleedka Puntland ya shaqo fiican bay qabsadeen 20 sano la soo dhaafay waa laga yaabaa daaweynidooda inay keento waxaan idin ballan qaadaynaa inaan la nimaadno istiraatiijiyad cad ee keenaya inaan hiigsano shaqada aan rabno qof walba oo reer galmudugna uu subaxi u kala shaqo la rabo leh qiyaaska iyo waqtiga la sameeyay iyo qofka sameeyay mas'uuliyad leh dabcan sida aad ka warhaysaan waxaan ahaa macallin waxaan ahaa nin oo shaqeeyo xafiis fariista waxaan ahaa siyaasi ma ihi dadka oo waqtiga balwada leh oo waqtiga balwada uu ka qaadayo marka hadii ilaa yiraahdo waxa u diyaar garoobaysaan shaqo har iyo habeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanada saaxiibada ee halkan jooga waxaan rabaa inaan idin ashur gareeyo hal arrin aan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku celiyo marnaba rabitaanka dadka reer galmudug qofna ma qasbi karto mana hor istaagi karto galmudug mana aha meel gadaal loogu celiyo dadka qaar oo boorso lagu sido meel gadaal loogu celiyo ma dhama qofkii capacity-giisa iyo khibradiisa aad ku qanacdaanna waa qaadanaysaan maskaxaad leedihiin dadkan waliba dad aad maskax badan oo xisaabtamo way oo aad u xisaabtamo marka xisaabtanka waxa la rabaa hoos inaad ka saartaan oo markaan aad danihiina gaartaan oo danihiina garataan anigu muddo xildhibaan baan halkan ka ahaa waxaan rabaa inaan aan idin kaleeyo waxaan ka shaqeeyaa arrimaha biyaha iyo ceelasha haddii galmudug aan madaxweyne ka noqdo galmudugta oonka badan oo la yaqaano waa laga raysan doonaa haddii la yiraahdo waxa aan idin sheegayo marka waxa walaa waa iska sheegayaa ma dhihi kartaan lama dhihi karo laana waa waxaan soo sameeyay waxaan hadda kadib sameey doono ma jidki waa aqaana haddii la yiraahdo raggi waa haystaa garbeeyay taagan yihiin waa u jeedaa diyaashiyaashii baarlamaanka Soomaaliya oo dhan hawla wadankaana waxaan rabaa dawlad goboleedkan waa dawlad goboleed aad weyn waxaa muwaadiniintiisa ka mid noqon doona madaxda federaalka ah marka aniga waxaan ballan qaadayaa inaan u sinaado on diyaashiyaashan iyo madaxda federaalka ah u dhaxeeya haddii la yiraahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhaweynta diiran sida la ii soo dhaweeyey soo dhaweynta waxay rabtaa wuxuu yidhi nin oday oo saaxiibkaya wuxuu yidhi hadda kahor dhallaanka dhunkasha keliya wax kuma tartee dhiisha waa in wax loogu shubaa marka baasha waa inaysa soo dhaweysha nooga dhammaanin shaqadu waa socotaa waa iska garan kartaa nimanka aan wax la leenahay anu horta hal arnaan rabaa inaan idiin sheego wax cabsi oon ka qabo male in meeshaan galmudug la yidhaahdo wax dardara laga samayn karo meeshaanu meel maaha odabaa la yidhi waa hadda loo sheegay inay taana mabowgiye way lama joojin kareen odabaa la yidhi ogaa waa xanuunsado waxaa la yidhi waa in xaniin lagaa saara wuxuu yidhi mudug baan ka imid oo 2 xaniinaan ku joogi lahaa hal wallahi inaan ku aadin halkan marka annaguna baryo kuma joogno waxaan rabnaa processka waa inuu noqdaa process fair oo cadaalada wax walba cadaalada waa aqbalaynaa waan ogolnahay wax walba cadaalada ka baxsan aqbali mayno nalamana marsiin karo ila meeshaan meel noo ku bootay maahane marka waxaan rabnaa annaga dawladda federaalka inaan ka wada shaqeyno in galmudug oo xalaal la helo halkan waxaa jooga saaxiibkay Ahmed Macalin Fiqi oo ahaa musharaxii madaxweynaha galmudug 2015 oo la tartamay dawladda federaalka markaas anigu aan wasiirka arrimaha gudaha ka ahaa marqaati weeye waxa la yiri nin beenlow nin dhintay nin dheer marqaati u qabsada waa kan gadaasheeda fadhiye habeen usbuuci 3 mar aan shiri jirnay si processka uu ogaado ugoon warhay aan la socdo wixii on ma nin hadda dheedheel ku harami iyo ha ogaado inaan goolsaha isku qabsadana mar rabo waa aniga qoslaayo jidadka yaan aad looga shaqeynayna goolsaha isku qabsado aad iyo aad baa u mahadsantihiin